قبل dagaalkii oo ma garanaysaa yara ayaantana soo galiyeen xuska waqtiga dagaalka uu bilaabmay madaxmanihiina waxaanu nahay khaadimiintoodii sayidul qawmi khaadimuhu marka baabuuriyeenaan doonin anagoo hela mooye protocol قبل dagaalkii oo ma garanaysaa yara ayaantana soo galiyeen xuska waqtiga dagaalka uu bilaabmay sarbaab gabay allah ii sakhiray siinka maasade subaxii shalaytiyo daraad salowgii ay reebtay sagalkaa aroortiiyo berriya saa dambiya maanta hadba saaca muuqdaa murtida laga sameeyaay suugaanta waxaa loo maraa surun xiriiriyoone ma seexdaan abwaanadu haddaa idinku suurteeni sanqadhaha baxaya iyo intuu ii sawiray wiilku waxaa laysku seegay ragow dirirta sooyaantay sulufkiiyo dhibaatada jirtee uunka wada saaqday sixinkii loodeen iyo waxaa subagii loo daadshay qof kastaa sareedada wuxuu siiga uga doortay surmi iyo haraad iyo wuxuu gaajo ula soomay ama maalka loo seegiye silixa loo qaatay aan idiin sifeeyee murtidiyaana idin seegi sindheer gabadha gaaride saddehan seeman iyo doonan soddohaa markii lagu kufsaday saylad laga buuxo dhallinyaro la soo soocay iyo saahidkiiyo sheekha sabablii markii loo deldelay sabi iyo waayeelba sadarrada qur-aanka iyo markii diinta laga suulay ay nabadisamadaa kortaa soodhka laysdarayeen saca gudhay salaax kuma godlado ama sabaalayne shicibkaad sadhaysaa ku dilay ina siyaadoowe saqdhexiyo habeen daba kolkii suurta la afuufay sumacii rasaastiyo kolkuu sabanku reemayey saldhiggii markay ololiyeen saamaddu u tiillay farxaddaan sariirtii ka dhacay suulashay jabay nimaa tidhi suldaaniya how calanna aad siisay isaguna sinsaariyii hadduu saawir kula gaado ou madaxa saab kuugu rado suudna kugu roorsho sadka adan leedahay hadduu keligii saameesho adigoo sagaalqaday hadduu suudha kugu eego dhan kastaba ha seegtee dhulkaa lagaga saydha dhan kastaba ha seegtee dhulkaa lagaga saydhaaye nimankii sabiibteenna cunay eeda sadadii faqashtii sallaan baa la dhacay saaran guri dheere sidii qaasisaadaaliyey siibashaa timiye sidii qaasisaadaaliyey iyo siibashaa timiye siyaadada kuwii qaadan jiray sancadba helade saraakiishii naaxdiyi askari suuqa lagu laah kunaan sulay kumannaan sigtoo seleeloo yaacay kunaan saafay kumannaan surgo'an saajinnadan leeday kuma sirisirqooboo halkii sibidhka booreeyey sakaraatulmawdkii kumaan samada eegaaya tibrahaa lugaha iyo kunay seedda kala goysay sambabada kunay kaga dhacdiyey sararta hoosteeda kumanaa salooliyo kumaan diirka laga siibay kumanaa sadqeeyoo sidii sumallada u loogay kumanaa sadqeeyey oo sidii sumallada u loogay in kastoo saqiir iyo kabiirna lagu soo duulay ha yeeshee siday doonayeen saatirmuu odhane siikaha markaan ula baxnay iyo seefta ololaysa sida ay u leedeen malaa waa la socotee sida ay u leedeen malaa waa la socoteene dhidar sooman jiifaasir gacan weera saralaaya sanqadhyaro shabeel iyo dhurwaa daba siqlaynaya sirle dacawo doofaar silloon harimcad siigeeya tuka sigulahaa soo sirdamay salaalmadhlaa duula abeesada sakaarada liqdiya soo gurkiyo bayda maska sululuxleeyiyo abguri sirunka noo jiifta kolay tahay subxaanyada dagaal waa ka siman yihin kolay tahay subxaanyada dagaal waa ka siman yihiin in kastoo saqiir iyo kabiirna lagu soo duulay ha yeeshee siday doonayeen saatirmuu odhane sannadaha mid baa aadanow saxalku fuulaa midna wuxuu ku siiyaa sidaan abid dhammaanayni 8 baan ka baxay saymahan gale bisha mee salaan baan u diray laga salguurayni xidigii ma seegina godkii saalisuu degayey xeradii siraad baa ka baxay madowgu saaraaye ummaddii samaraysiiyo khalqigii seetadii furee sahankii maqnaa iyo nafsigii saaka ii yimiye alla ilaahay sidaa rabay wakhtigu way igu soo sima waxa sidigtii lagu maalayaa sayle iyo toon mar haddaan sanaag iyo hankiyey saylac iyo xeebta burcal lama saluugina horay calan u saareen saacad baan hargaysana ku qaban weeraraan sugay sibidhkaa la joogaa berbero waa ku soconnaa boorama soodeedana haddaa go'ay sidkeedii saxalkii dalkeennii ma jira samanawow kowe 9 baan la qaban saaka caliyowe suxulkaa la haystiyo intaan saxarka qaadayno
golahaannu berriya hadda baarlamaankow webiyada butaaciya badda mawjadeed iyo xilku buura weeyaan waxaana ka bixi kara bulshada iyo dadweynaha niman been ku maamulin golahaannu berriya hadda baarlamaankow webiyada butaaciya badda mawjadeed iyo xilku buura weeyaan waxaana ka bixi kara kolka baahi awgeed beelaha wal loo qalo niman beerka sii culin kuriskana berri u dhigan webiyada butaaciyo xilku buura weeyaan waxaana ka bixi kara laba baabacoo madhan ninkaa laba baabacoo madhan ninkaan bidixda qadinayn midigtana bartiiq iyo badhidiiyo waxaana ka bixi kara maanta baylahdeedana berri inaan lagu hadda baarlamaankow boga caanaheeda iyo burcadka iyo labeentana inaan rubahdu waa u simantahe inaan ruuxna loo burin ama booli lagu cunin ballankeennu weeyaan golahaannu berriya hadda baarlamaankow howladda dadweynaha baanka loo sameeyey barta loogu tala galay inaan shilinku baalmarin ballankeennu weeyaan golahaannu berriya hadda baarlamaankow kuwa bacadka jiifee barcaddaad kulaayiyo bilistiiyo carruurtana baradiiyo dhulkoodii barkimada in loo dhigo ballankeennu weeyaan golahaannu berriya hadda baarlamaankow maanta baylahdeedana berri inaan la gaadhsiin ballankeennu weeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isagoo qoran ayaan idiin soo gudbinaya oo kaftan ahaan ahayd dadka qaarra dabcan waxay yidhaahaan kuwiina soo furay ee seeftoonna dul saaran ilaahay uga dhigay gacantii naga qabanaysay qofku waa ka mida oo raggii jeelka ku jiray ee dilka ku xukunaada ayaa caatifadu qaadaysnay inuu bariseen hortaago barraha soo dhawaado bismillaahi raxmaan raxiim nin loo xilay inuu wixii laga hor yimi ka hor yimi iyo nin lacag haday iyo nin baxsaday waa inaynu runta isku sheegay laakiin ma qalmaysaa soo qaadla malaha waa faqashtaa inta ma kafto meesha u badan oo cawlkii qaxa laga qaad rag baa de sideetkii ka halgamaya xama aydan weyn ama wada intaa bilowga ama kooda taasik hallay fadhiisto maxamed cali oo inoogu qoran dastuurka waxaa u horraynaya guddoomiyaha ururka ku-xiga guddoomiye ku-xigeenkiisa waa maqan yahay iminka waxaa ku xiga guddoonshaha golaha dhexe waxaa ku xiga xubnaha guddida fulinta waxaa ku xiga xubnaha golaha dhexe xubnaha golaha dhexe mar haddii ay badan yihiin kuwa fulintuna waa badan yihiin iyagu bay ka yar yihiin inta qofkii iyagu waa caddaasay u dhaaranayaan inteenna badan say inoogu fududaato shan baa loo soo geli shaniba mar bay dhaaran tobanba wayna odhan karraa tobanbaan ka dhigno say inoogu dhaqsato erayada lagu dhaaranayaana waa kuwan soo socda waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ummadda iyo ururka daacad u ahaado inaan anigoo u hoggaansan dastuurka barnaamijka iyo xeerarka dejisan si daacadnimo iyo hagar la'aana u fuliyo xilka lay saaray اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر إنكو دارين الناس دستور كدغيو gudoomiyaha ururka annaga oo dhaarinayna muxuu ahaa sida dastuur ku dhigayo gudoomiyaha ururka gudoomiye ku-xigeenkiisa guddoonshaha golaha dhexe iyo muxuu ahaa xubnaha guddida fulinta xubnaha golaha dhexe gudoomiyaha maxkamadda sare oo hay-adaha madaxa samaanay saddexdaa iyaguna madaxdooda intaba inagoo dhaarinayna waxaanu ku bilaabaynaa gudoomiyaha ururka
دارتي waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ummadda iyo ururka daacad u ahaado inaan aniga oo u hoggaansan dastuurka barnaamijka iyo xeerarka dejisan si daacadnimo iyo hagar la'aan ah u fulinayo xilka lay saaray waxaan ku dhaaranayaa imikana waxaan dhaaranayaa guddoonshaha muxuuha golaha dhexe waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ummadda iyo ururka daacad u ahaado inaan aniga oo u hoggaansan dastuurka barnaamijka iyo xeerarka dejisan si daacadnimo iyo hagar la'aana u fuliyo xilka lay saaray mar wadayda kolkaa hadalkaan idhahdo ma iga daba odhanaysaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ummadda iyo ururka daacad u ahaado inaan aniga oo u hoggaansan dastuurka barnaamijka iyo xeerarka dejisan si daacadnimo iyo hagar la'aan u fuliyo xilka lana saaray ama lay saaray imikana waxaanu dhaarinaynaa xubnaha golaha dhexe waxaananu ku bilaabaynaa xubnaha iminka jooga waxaananu dhaartuna waxay tahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ummadda iyo ururka daacad u ahaado inaan aniga oo u hoggaansan dastuurka barnaamijka iyo xeerarka dejisan si daacadnimo iyo hagar la'aan u fulinayo xilka lay saaray والله بالله والله ما عليك ولا طاق waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ummadda iyo ururka daacad u ahaado inaan aniga oo u hoggaansan dastuurka barnaamijka iyo xeerarka dejisan si daacadnimo iyo hagar la'aan u fuliyo xilka lay saaray